gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo warfidiyeenka kula hadlayay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa jawaab adag ka bixiyay eedow u soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siiraanyo waxaanu gudoomiye Ciro mar kale madaxweynaha u soo jeediyay inuu qabto doorashooyinka dalka oo aanu ka meermeerin horta saxaafaddu mala wada joogtaayo kamaradihiina iyo rekoorkiina wada baari doontaan maraan idhi kayguna waa xalaalkii madaxweynuhuna waa xaaraan waxaan marayaa in la soo helaynin madaxweynaha waxaanu lahayn madaxweynuhu wuxuu yidhi baa layidhi waddankaanaa ka mas-uula annaguna intaasu maanu lahayn aanu ku celcelinayni madaxweyne waddanka adaa ka mas-uula doorashadiisa isagaa adaa ka mas-uula nabadgelyadiisa adaa ka mas-uula madaxweyne doorashadii qabo madaxweynuhu ma sheegay waqti doorasho inuu qabanayo waxay la tahay madaxweyne waxaanu leenahay wax waliba waqti bay leeyihiin waxaanu soo jeedinaynay uun waqtigii doorashada inoo qabo ummadda inaanu kuraasida u bannayna xaq bay noogu leedahay kayga iyo kiisaba markaa waxaan leeyahay arrintaa doorashada ku saabsanna doorashada mas-uuliyaddeeda madaxweyne saaranta xeerkuna sidiisaba boqolkiiba 99 xeerarka wuxuu ka yimaadaan fulinta xeer galuhu oo aanu gacanta ku hayaa ma jiro galuhuna sida ay ku doodaan ama madaxweynuhu ku doodo 54 mudan u leeyahay hadday ka dhabtay madaxweynaha in xeerka la ansixiyo 54 taas ku filan waxaan isweydiinayay madaxweynuhu muran baa ka jiray wadalka muddo kordhin baa jirtay khilaaf bay abuurtay mushkilado badan baa jiray gobolada qaarkood xasilooni darra ka jirtay waxa isleeyahay maanta kor xaq ku maqnaa madaxweyne xagaad ku maqnayd weli waxay dadku ka sugayay kama jawaabin oo goorma doorashadii qabanaysa haddana weydiinaya madaxweyne isagoo halay gulaab Cabdiraxmaan Ciro buu ku oran maayay si ilaahay waxaan madaxweyne doorashadii bay dadku ka sugayaan waxa muuqata inaanu ka jawaabin su'aashii dadku ka doonayeen ka jawaab Patrick Koosar Maxamuud telefishinka caalamiga Star Hargeysa.